السلام الله عليكم أخيارتنا لا سقطة إذا الكيمبا في دون أحسن ملك استوى الدنيا كجوكتا كسر هذا مركل يتبنتا ورك قبل كبار قد حي فقدات الدبلوماسية العالم كقضى بدأ ندين كوها يتبنتن عاو أو أي سدد تبنتها بيشا مي سنة كلام كل حي لبعتنا وحكمنا maraykanka ayaa diyaaradihii ugu badnaa ee dagaalka waxa uu geynayaa ama uu ku sii wadaa gobolka bariga dhexe tan oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan saasaan dagaal oo dib u cusboonaanaysa iyo waliba in dalkaasi uu doonayo mar kale wadanka Iran in uu weerar ku qaado madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in uu ka sii dhamaanayo arrimaha la xiriira dulqaadka wadanka Iran isla markaana loo baahan yahay in ay si degdeg ah u aqbasho inay heshiis gasho ku saabsan arrimaha gobolka isla wararkaasi oo gobolka bariga dhexe taabanaya ee aan caawa idinkugu haya tabinteena waxa kamid ah Mareykanka ayaa wadanka isutaga Imaaraadka Carabta waxa uu ku qalqaalinaya in ay qayb ka noqdaan suurtagalnimada dagaal military oo lagu qaadi karayo wadanka Iran taas oo ay dadka ku tilmaamayaan in ay tahay mid xilligan keenaysa walaac hor leh maxkamadaha militariga Israa'iilna waxay maanta ka dambeeya waxa ay u fasaxan yihiin inay dilaan oo dil lagu xukumo dadka dambiyada lagu helo dilalka Israa'iiliyiinta la xiriira kadib markii maanta saxay mid kamid ah taliyaasha ugu sareeya ciidamada militariga walaac xoogan ayaa arintan keentay iyadoo 9,000 oo qof oo ka badan ama 9,000 oo qof ka badan ay u xiran yihiin nidaamkaasi oo ay ku jiraan haween iyo caruur qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeya xilligan gobolka ayaan faaqidaya khiyaarta inala socotay meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo aan ku horeeyay dalka Mareykanka waxa uu iminka u muuqanayaa inuu sameynayo sansaan dagaal oo ka dhana wadanka isutaga ama dalka Jamhuuriyadda Islaamiga Iran kadib markii saacadihii la soo dhaafay xogaha la helaya ay tilmaamayaan in diyaaradaha ugu badan ee dagaalka iyo kuwa xamuulka qaada ee logistiga loo isticmaalo wadanka Mareykanka uu geynayo gobolkaasi xiisada ayaa iminka maraysa meel aad u kulul marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa iyo waliba goodinta labada dhinac waa Tehran iyo Washington ay iswadaarsanayaan xogta duulimaadyada iyo raadraaca hawada ayaa muujinaya in Mareykanka uu sii wado dirista diyaarado xamuul ah oo ka duulaya dalka Jarmalka kuna wajahan gobolka bariga dhexe taasi oo muujinaysa dhaqdhaqaaq ciidan oo sii kordhaya xilli xiisada gobolku ay iminka gaartay meesha ugu sareysay sida lagu sheegay falanqayn cusub oo daboolaysa baaliri muddada u dhaxaysa 15 ilaa 17 bishan May waxa la diiwaan galiyay in ugu yaraan 26 duulimaad oo military oo Mareykan ah ay ka baxeen wadanka Jarmalka iyagoo si weyn ugu sii jeeday dhulka gobolka bariga dhexe iminka ay ka aloosan tahay colaadu warbixintu waxay tilmaantay in dhammaan duulimaadyadan ay adeegsadeen diyaaradaha waaweyn ee xamuulka ee nooca loo yaqaano Boeing C-17A oo Goba Master 3 loo yaqaano kuwaas oo ka tirsan waaxda duulimaadka cirka ee Mareykanka isla markaana loo adeegsado daabulida ciidamada sanada militariga iyo qalabka cusub joogitaanka militariga ee gobolka ayaa sii xoogaysanaya tanina waxay khubaradu ku tilmaamayaan mid abuuraysa cabsi xoog leh dhaqdhaqaaqan cusub ayaa sii kordhaya iyadoo wali marinka Hormuz uu xiran yahay gacanka Cumaan ee caqabada ka jiraan iyo badda Carabta isla markaana madaxweynaha dalka Mareykanka oo iminka ka fiirsanaya maalinta Salaasada ah in uu qaato go'aan tilaabooyin military loo badinayo ka dhana wadanka Iran madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in uu ka sii dhamaanayo dulqaadka loona baahan yahay dalka Iran inay la yimaadaan isbedel inta dawladda Mareykanku aanay si baan u qaraacin wadankaasi ila Mareykan oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu muujinayo dulqaad si dhamaanaya baaliyada xilligan oo ku wajahan dawladda Iran xilli aysan wali jirin horumar muuqda oo laga gaaray wada hadallada labada dhinac sida ay sheegayaan ila wareedku dulqaadka madaxweynaha Trump ayaa sii yaraanaya sabab la xiriira horumar la'aanta ka dhalatay xiriirka labada dhinac iyo waliba heshiiska dhinacyadan ay iswadaarsanayaan waa Mareykanka iyo waliba dalka Iran oo iminka u muuqda inuu san rajo badan lahayn
sida la ogaanayo xiisad military dabacsanaan diblomaasiyadeed iyo dhaqdhaqaaq xoogan ayaa ka soconaya gobolka bariga dhexe iyadoo warbaahinta Israa'iilna ay ka sameynayaan falanqayn gaar ah. wargeyska The Hearts ayaa soo bandhigay warbixin dhinacyo kala duwan taabanaysa oo guud ahaantoodba quseeya gobolkaasi. wargeyska Israa'iil ka soo baxay The Hearts lagu magacaabo ayaa sheegay in taliyaha aan iraade maanta Israa'iil ku dhaqaaqday la leeyahay in ay sameynayso taxadir iyo waliba sidii diblomaasiyadda kor loogu qaadi lahaa. hasaatee dowladaha Shiinaha iyo kuwa Carabta iyo dalka Pakistan waxay sameynayaan dhaqdhaqaaqi ugu xooganaa. iyadoo dhinaca kale Mareykanka wararka ka imanaya ay tilmaamayaan ila military oo la helaya dowladda isutaga Imaaraadka Carabta in lagu riixayo in dagaal ay ka gasho baa la leeyahay gobolka bariga dhexe oo ah mid loo adeegsanayo hanaan military ah kaas oo si weyn u taabanaya in dalka Imaaraadku uu qayb ka noqdo dowladda Iran weerarka lagu qaadi karaya. wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa dalka Britain ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu cadaadiisa ku saarayo Imaaraadka Carabta inuu soo qaado oo qaato door military oo toos ah oo ka dhana wadanka Iran xilli xiisada gobolku ay sii xoogeysanayso. sida warbixintu ay sheegeen saraakiil hore iyo kuwa hadda jooga oo Mareykan ayaa soo jeediyay in ciidamada Imaaraadka loo adeegsado howlgalka dhulka si Mareykanka loogu yeero ku lug lahaanshiyaha tooska ah ee dagaalka iyo waliba qasaaraha Washington hoos loo dhigo. mid ka mid ah saraakiisha hore ee amniga maamulka Trump oo la soo xigtay ayaa waxa uu sheegay tan inay tahay tabta iyo taagta ugu wanaagsan ee Mareykanku uu dagaalkan gool weyn kaga gaari karo. kororka doorka Imaaraadka ee xiisada Iran ayaa hadda u muuqanaysa inay tahay tan ugu ballaaran. warbixintu waxay intaas ku dartay in Imaaraadka Carabta ay sii kordhayso ku lug lahaanshiyaha militariga xilli khilaafaad xoogan ay iminka dagaalkaasi dowladda Iran ay ku yeelanayaan. tani waa isbedelka istiraatiijiyadda Abu Dhabi ayaa lagu yiri warbixinta The Telegraph uu baahiyay. eedeymo siyaasadeed ayay dhinacyadan hore isku weydaarsadeen taasoo iminka muujinaysa dowladda Imaaraadku in ay isku diyaarinayso sidii dagaalkan suuragalka haddii lagu riixay inay gashay qayb uga noqon lahayd. nidaamka Israa'iilna maanta waxa uu meel mariyay in la fulin karo maxkamadahuna ay qaadan karaan inay sameeyaan tallaabooyin dil ah haddii dadka Falastiiniyiinta oo daanta galbeed ku nool lagu helo in ay mashaakilka qayb ka noqdaan oo dad Israa'iiliyiin ay beegsadaan. sidoo kale arrintan ayaa waxa si weyn u dhaliilaya hay'adaha xuquuqda aadanaha. wargeyska Israa'iil ayaa sheegay in taliyaha ciidamada dhexe ee nidaamkaasi oo lagu magacaabo Avi Plot oo saxiixay baa yiri amar ciidan oo la siiyo maxkamadaha militariga ee daanta galbeed taas oo awood u siinaysa in ay saari karaan xukunno dil ah dadka Falastiiniyiinta ee lagu soo qabto ku lug lahaanshiyaha in ay geysteen falal dil iyo isku day qaarajin labadaba. sida wargeysku uu sheegay xukunkan ayaa waxa hore u meel mariyay baarlamaanka kaniisadda ee nidaamku waxana uu hadda noqonayaa mid aad u sii xoogeysanaya. ilaa iyo 9600 oo Falastiiniyiin ayaa ku jira xabsiyada nidaamka Israa'iil kuwaas oo tiro badan oo kamida ay kamid yihiin caruur iyo haween waxana dhinacyadu ay suuragal ah leeyahay in tilaabooyin dambiyo dhacay dib faylkooda loo furi karo. khiyarta inala socotay tabinta qaybtan iyo barnaamijka faaqidaada wararka caalamka iyo taxliilinta diblomaasiyadda qaybtan intan ayaan ku akrinaya waa barrow idile nabadgelyo.